يا ماركو عاشقو بل أصحابي رالي النقطة خدك هو شيء تلفونكي سامسونج ستا إنك تلفون عن شعلها هي هدنا ديبانو بختيه ديبان شداي ويكنا عم كنا سودا وهذا هل سودا وهذا مكا هذا ما لي مغلاه قلبي قبوه يولو برتا شوكتو عن شعلادو هبلا كان بيرك يشو برتا شوكتو عن شعلادو هبلها كان بيرك يشو هاتات هيا ما تسنتاي عبد الرزاق روح وعندنا هذيك انا كوبيس عزومه انما دشدان ادانينا فيسبوك لايف كوبيس عزومه لكن ما انت خالد بك هذيك يا انما دشدان ادان سو دياريان شكرا خلاص برسل عطوا ما مقشة لا كان بيركي الشهاوك مغلا صعب سفي عن أنا ما يمخلصها أنا يوم قاعد كنا أدودي أدنى اللايف كاكو شريت تشوشي زاني وفريسا سيدا يدو كلمة شاحنا صعب والله في البروفيشنال إلهي بنا يلالين لا يقولي إن شاء الله أوكي don't worry روحي وحيقنا حياة ضبها يا أنت كلورنا نجمنا حياة الموت ولقانا حياة صاحبه إلهينا هنا إلاليان نقولوا هنا نسلالنا حنكون صاحب وركا كان دم حددك وهيسا محد داودياش وهيسا والله وح أنا هي ويسكير تاكلي الحمد لله عافمات ما هي عافمات معكونا سيدنا الحمد لله حكونا أكسن متر كودي waxaa jira isaguna wiil aad isku eegtiin oo sidoo kale casaanta yaada oo isagana cabdirasaaq leeraa ku jira wayna daawanayaa isaga laftigiisa inaa maalin lagu soo casuumo live-ka weeyaan maalin tole maxaa ku diidan midnimada cascas bay ka shidan tahay weeyaan sheegado bartaa kaga hay abti waxaa la yidhi nin cas naagtaada uga baq nin madowna naftaada uga baq ragga mid madow ayagu ayaa armaxaas ma jirta imika labada dhinac wala isku qaatee mataqaani miya naagi ninba naftiisa uga baqa cas arkee ya dala sidoo noqon barek kuna jelis warka keen bal dadka dee maxaa daawadayaal badan baa ku daawanaya asxaabteedii baa ku daawanaya bal maxaad uga sheekeynaysaa maxaad kula horta bal salaano isku yara macneeyo aniga kulay macneeska ma karaye aniga waxay khaalid munir bal iraada intii garanayso way garan intaan ay garanaynahay bartaan weeyaan barasho wanaagsan intaan ku garanayna barasho wanaagsan wallahi barasho wanaagsan de inta barashada u baahan weeyaan inta kale erkaa eegtaniyo afka korutaaga liina bariyo ku dhaniyo ما صاحب دجالك إني قد هنا أقول بالعام ضدك ما أنتوا فرحسين وهبي واحد معك قيل إلا ما تشهدوا ضدك وفرحسين هبلين وحي هلند قفة الدعوضان إنما مدنا حي هلند قفة الدعوضان مركا إنما مدنا أركتي ده هكو يا حسكوا فرحان ما فهمت دينا عودنا عكس عطد حبط مرة نا عكس عطد مرة دمرك مرة رجع عكس عطد هذا إلا ويمكن شكل ويدالي ترنتها موتة مركا هراء إنما مدن بيداون شري قبلنا وحناقة ما حننت الناقة محاكد إن الناقة محاكد داون سوى سؤالي. تعرفي بيسوق راعي يا عمي. سوري. خدتي بيسوق لنا. أيوه. أنا والله سوق راعي يا عمي مركور هذيك راعيتان بهذا أنا خدت كله يسوق لنا. صح بالغات شري وحن كوري خالدو. إيه. واحد يقش لك إنسان. إيه. هذيك يشوكان سجدوا بركوسيس كتي ما دام مدينة كاقروح لبنان لا تهاي سيدي بهبلها تسكتيهين محل هذا كل قفكي أركتك وأركي ما قرتين كستان أركتك وأركي أو ده مركب فيديو قال قاعد داونا يو مركب صور كاقل داونا أتكش شلون تاي مركب يا لايف كلو أركيو والواحد يقش كيسا هبلها سيدي بعد وجا حرق الشعب اللي يجورن أرض والله لمبو مش دقيقة موت marka hadda qof wanaagsan tahay dadku soo doonaysa dadku wanaagsan baa la saaxiibi hadda ku taayna dadku baa la saaxiibi saaxiibka yaad ma tahay saaxiib xun hadda leedahay
adna waad xun tahay taa ogow marka weligaa waa la iska ilaaliyaa wixii xun oo dhan wixii naftaada halis u keenayo mar walba waxaa la dadaalaa laakiin ilaahay la isku xidho maaragtay wanaagin inaad badisid haddaad qof wanaagsan tahay hadal Yuusuf leedaa waxay tiri kan iska daa uu isla weyn yahay isla weyn baa kugu jirta saaxiib arrinkaa baliidanta uga jawaab wallaahi wax isla weyniya igu jirta ma jirtee dabeecaddeeda inaan iska aamusnaado quiet guy wallaahi qof wanaagsan baarta tahay intaan ka aqaan de inta kale ma garanayo thank you maaragtay wanaaggaas waa inta laygu jeclay wanaag hadduuna jirnin meesha amiin cid ku jeclaanaysa ma jirta haba yaraatee wanaaggaagu inuu bataa fiican adduunka waxa ugu wanaagsan ood kaga tegayso waa magacaaga iyo waxaa qabatay haddaad qof oo ilaahay ku xidhan haddaad tahay maadantay dadkuna way ku wanaajinayaan saaxiibkaa faysal baa xaggan kaa soo salaamaya anigu waan u xanaaqsanaya ninkaasi faysal maxamed suubane ninkaa naga daa ninkaas waxaan ku leeyahay maasha allah xaaskiisii carruurtiisu dhaqanaya mugti anigu waan u xanaaqsanaya saaxiib faysal aan xanaaqsanaani faysal waa qalbi xabxab baa la dhahaa mugti khaalid dadka qaar waxay ku moodayaan inaad bidaar leedahay maadaama aad koofiyad xiran tahay koofiyadda iska saar baa lagu yidhi balnayarta u sheeg waxaad tiraahdaa bidaar buu leeyahay abkaa ku mashquulino ku dheh doqumi weyn may koofiyadda uga qadaa arkaan timahaaga quruxda badan bidaarba meesha ku arkayaa niyo timahayga maad arkin meesha waxbaa ka dhacay meesha waxa waa istaaniyo dad aan garanayo abti baashi waa la iska xidhaa maraykanka waxaan ku weydiiyey war kalaan su'aal kalaan ku weydiinaya khaalidow jawaabteeda ku hayso dhexdaasa waxaad jeclayd inaad fanka ku soo biirtood ka mid noqotid bahda fanka anu fanka waxa ku soo biira war aan doonay hadda maaha fan ku soo biira maya fanka maadaamood dhegeyso waxaan ku weydiiyey waxaad iiga warantaa fanka sababaha ugu waaweyn ee kugu kalifay inaad ku soo biirtid maxaa ka mid ah horta been kuma sheegay fanaaniinta hadday ku yidhahdaa fanka waan jeclahay waa been fanka sideedaba dareen baa u geeya qofka hadduu wax jeclaado hadduu wax jeclaado horta qofku uu ku kalifaa inuu fan galo suu uga calo dareenkiisa waxay ku oranayaan anaga heesta waa naloo sameeyaa marka heesta la samaynayo maxaa loo sameeyaa micnaheeda horta taa ma la ogyahay heesta dareenaa laga sameeyaa qofkii wax ku dhacay waan history weeyaan dareen adiga kugu dhacday amba dareen saaxiibkaa ku dhacday le weeyaan so wixii adiga kugu dhacay wixii saaxiibkaa ku dhacay waa wax adiga kugu dhacay waarun saa daraaddeed dareen baa u geeyey qofka inuu fan ku biiro dadna waxay ugu biiraan magac anaga reeabtayaashii oo dhan fanay ku jiraan anagana fan kuma jirni alxamdulilah wax lagu faano fan maaha waa laga faanaa khaalid aan kaa soo dhex galo dad badan ayaa halkan waxay ku weydiinayaan qaarkood waxay ku leeyihiin sida imika uu ka mid yahay faysal wuxuu ku yidhi hidadhoor weligii maad ka heestay ayuu ku faysal weligii hidadhoor ka heesi jire imsaan ka hayaa fiidiyooyaan ka hayaaye isagoo ka dhex boodbooda hidadhoore adigu weligaa hidadhoor ma ka heestay wallahi horta hidadhoor waa tegey maasha allah meel waqti lagu qaato hidadhoor is the best place like it's nice quiet like cuntadaada lagu keenaa baala yaro gabdho qurqurux badan ku agmanayo reer Hargeysa maasha allah maalintaas maarta habeenkaas is your best day hakule best night weeyaan I wish insha allah inaan mar taga Hargeysa anigoo faraxsan wali dhulkayga hooyaan ku laabto haddii ilaahay idhaahdo waxaa lagaa codsaday inaad xabad heesa codkaaga la tijaabiyo maadaama tiri fanaan baan rabay inaad noqdo gurigii baan nin heesaynine wax kale ma sheegtida business iyo adigii yidhi waxaan rabaa inaan heesan fanaan noqdo anaa taa ka haye anigu kusoo dhaweyn lahaye garabkaaga taagana mar walba moogta haye xabad heesa noogu dhifo aniga haddaa adiga ila heesa suman heesaya ma ila heesaysaa waad xujeynaysaa saaxiib markaase yaad qarxinaysaa meesha ku dhex qarxinaysaa anu keliga ma qarxinay anu weligii aan Facebook live ka heesaa saaxiib anigu taasi ima cabsi gelinayse waan ishubaaya codkaygana waan hubaaya adu ma subtaa maad garanaysa horta horta waxaa la yidhi nin isfahanshi waa ri isnuugti moogta waa runtaada codkayga waxaan u heesayaa moogta my future wife insha allah taas wey maalinta arooskeeda maarta ikoolkoolisaay kalgacal igu waraabisaaydaasan hayna maanta o dhan
ay golgolisay kalgacal saa inaad ka hadashid ereyadu baa akhrinaysaa ku yaro luuqay bal codkii Axmed Sakiinta aad ka yar baadhid dhaca ku soo bax ma xarabtaa inaa amiin Facebook oo dhan muxuu ahaa ishay blog la wada gelgeliyo blog la codkayga macaan daraadeed maaragtay qof walba qof kale blog gelina Khalid kaliya baa xabadaas xabad cajiibe marka mar rabno moogtay future wifi u qaadi lahaa insha Allah maya dadkii maadaama dadka inaad raali gelisid maana ahayn mararka qaar dadku waa raali gelin lahaa laakiin inaan iska heeso moogtay raali gelin maaha baashu in la isku diyaariyo weeyaan next time maaragtay marka soo diyaarsada xabadahayga hubkayga aan soo diyaarsado ayaan la iman karaa hadda bilaa hub baan ahay waa socdaa yaa saaxib Facebook haddana aan ka cabaado aan iska qeexeliyo may waa inaan hubka diyaarsadaa yaa in waxa la yiri xishoonayaa baa la yiri marka waa akhir zaman maadaama dumarkii ka heesayaan Facebook live dhacdooda ragina ay ka baqanayaan ka xishoonayaan adduunka waa la rogayaa waa inaa weysada la qaato dhinaca Ilaahay loo jeedsado alxamdulillah horta beenku mishi xishoodkiisa waa iimaanka qofku mar hadduu xishoonayo ma sha Allah iimaan uu haystaa qofka hadduu xishoonin iimaan ma haysto moogtaa qofku wanaagsan waxyaalaha qaarkood inuu ku faano waxyaalaha qaarkood uu ka faano so aniga hadda qof walba habi buu leeyahay qof walba gool uu leeyahay ma sha Allah qof walba wax buu jecel yahay inuu noqdo qof wuxuu ku oranay aniga doctora noqonaa bayloodna ma noqonayo halkan uu taagan yahay qoriyo haysta baylood iska yiisaya marka dadku isku wada mid maaha yaa marka sadre habi uu leeyahay ani biriga hore been kuma sheego wallahi doctorna noqdaa rabay maraykan baa lay keenay doctor noqotid inaad doctor noqotid inaan doctor noqdaa rabay wallahi xamlada dumarka aad daweysid dumar badan aan dawin lahaa saf layna la soo galay Google Live marka lagu arkay Khalid halkan meel aan xanuunaynin paracetamol ma u qoraa marka paracetamol Afrika laga cuni jiray aynu qoraa paracetamol loo qoraa dhimala laba paracetamol habeenkii ma la cun baan u leeyahay mugti marka qof alxamdulillah waxay ku tiri macaan baa tahay saaxiib waad shidan tahay maax baa tahay thank you so much ku day horta dadka laakiin cadcada dhinac ka haysa baa lagu leeyahay cadcada iska yara hay waa anagu cad baan si cadeynayne dhinac caday waa la casbi noqotay taan sida dhaxno moogta cadcada isku sii dhignaa si cadaano ilaa bilaa moogtahay dadku inay si cadaadaan bi jecel iyagu madoobe anaguna si cadaanaynaay Wilson ari su'aalan ku weydiiyay saaxib hay weydii jawaab yaa waliga Axmed jeclaad waan jeclaaday waliga sheekay qalbi lawana ma qofla qalbi ana hay saaxib kumaan man jeclaanay walibana okay jacaylkaaga ugu horeysay iga sheekay bal dhibtii ugu darneed ee waliba ilaa hadda aad ku qosushid macna marka soo xasuusid wixii ku qosolka sameysay faniga sheekadii ugu qosolka badneed aan kaaga sheekeeyo jacaylkaygu ugu horeeyay wiilkan jeclaa ayaa waxa dhacday inuu maxaa la yiraahdaa waan iskala hadna waan islaynay moogta khilaaf baa meeshii yimid khilaaf markuu meeshii yimiday ayaa waxa dhacday inaan aniguna waan jeclaa moogta jacaylku qofna uu ku horeeyaa qofna uu ku dambeeyaa laakiin jacaylkaygu aniga zaid buu badnaa xaggaygu ka badnaa baalku niyo waxaan ku haddaan codkiisa maqal waayo hurdabay ma iman jirin kowdhe markaas waxa dhici jirtay saaxiib heeraan gaari maan rabina inaan telefoonkayga ka qaraaco soo dhan naagtan telefoonka kugu soo waalatay waa tan oo tan wayba kugu dhimanaysaa bahaalshana karaamadan ku yara dhimanaya karaamada dumarku moogtahay waxyaalaha moogtahay waxay ku adag yihiin hadday ninka si walba u jecel yihiin moogtahay dhibaato naagtaydan maxaan samayn jiray haddaba intaan yara cararoon baan meesha kaabinka waxa la dhahaa meesha telefoonka substation baa la dhahaa iyo kaabin soo ma Francis waa meeshaasaan tegi jiray intaan qaraaco nambarkiisana maskaxdan ku hayo korkan ka hayay moogta waxaan fidsanaa sida biyaha loo cabaan u cabsanaa moogta si fiican midda kale qofka markaad jeceshahay lambarkiisa gurigiisa gaarigiisa inta waad xirtaysaa moogta dhibaatada waa taas kadib waxaa dhacday telefoonkii intaan qaraaco ayaa markuu halow yidhaa halow ma hadli jirin halow markuu 3 jeer yidhaa iska dhigaa intaasaa biligu jiraysa waa ma faraxsana codkiisii waan maqlay
عاكله جاجر العاده بad ka qaadatay halo halo dee wixii ugu yaabka badnaa haddaba aan kuu sheega haddaba intii sheekada ugu macaanida ugu yaabka badnaydba waxay kugu qosokay ilaa hadda waxaan gaadhay inaan ninkii inuu naaga shukaansadii in kale inaan baadho anigoo ka hadhay oo haddana hinaasihiiba ay waday moogtahay dadka hadhay maxaa ku daba socodsiin waayaa he kadib maxaa la dhahaa inan baan u diray waxaan raadiyey gabadh foolxum ilaahay horta dembigayga ha iga dhaafee de ilaahay baa qof kastaba abuura moogtahay laakiinse de waxaan islahaa xataa hadday isfahmaan isku qalmi waaya isagana waxaan ogaa moogtahay kibirkiisa iyo hankiisa de isla han weynaa moogta xabad yaroo foolxum intaan raadiyey ayaa waxaa dhacday inaan ku iri saaxib inankaa bal nambarkaa qaraac tijaabi bal inuu kula sheekaysto gabadhi telefoonkiiba qaraacday magaca kale adu waa laga qabtay magaca kale la isku sheegtay waa la isbartay gabadhii damacbaa galo waxay damacday ninkiina run u qabataba dee filimkii tijaabintii way ka baxdayba kawdhe kadib markay tijaabintii ka baxday laystiri dee haddaba ninka la wareeg ayaa waxaan ku idhaa ninkii mukula soo hadlaa beryahano may lama soo hadla bay tiri haddana way la hadashaa dhinac way kala hadashaa hadda naagtan tabayb iyo qalbigaasaa la ishayaayo dhagaha la isgooyaba laakiin laysma arag weli sheeko waa lala wadaa wallahi cabsi waxaan rabtaa inuu sooco markuu arko halku hore kadib gabadhii waxaan ku yidhi markii dambe waxaan go'aansaday inaan naagtii ku dhaanayaa haddaba war baan ku hayaa waa inaad imka la hadashid ninka waa inaad balamisid messageka u qor itus wuxuu kugu soo jawaabo anaa ag fadhiya messagekii u qortay waxay ku tiri haye macaawa mas arki karna haa buu ku yidhi xaggan isku aragna xaggaa waaba la isbalamiyeyba gabadhi waxay ku tiri markaa gabadhi iska yara reer miyi bay ahaydo dee hablahan dhowaan magaalada soo galay bay iska ahaydo dee miskiin yaroo iska dee miskiin dee iska ahayd ma fahanta watarkii cadna u mari sida miskiinta watarkii caddaa inta u mariya qalisnin halkaa ilaa halkaa ku jeexay kowdhe xaasnimo waxa ka qabtay hinaaso kowdhe anigu hinaasiyad baan ay number 1 baasha layma tusee waxaan ku yidhi dee gabadhi ninkii intaan u raaciyo aniguna intaan sidee u labistay bal xijaab iyo naqaan xidhayo weliba meeshuuna hargeysa ahayd hargeysa maraan tegan u xagaa baxay bahayd xaafidaheed kowdhe kadib gabadhii waan daba galnay aniga gabadh kaleon saaxiib nahay hadday daawanayso saaxiibada filsan labadeeda sheekada soo dejinay waan daba galnay ninkii way bamaal maqaaxiya hoobaan internet ciddii garanaysa way garanaysaa hoobaan internet ayaan tegnay marka anagu meesha miiska agtoodan fadhinaa naqaan baan sidanaa labadeedubana ma garanayo ayadii markuu arkay de wuxuu ku noqday de surprise u nahay moogta isaga laftigiisa hadduu daawanayo qosli doona abti niyadda lagama xumeeyo gabadhe habsi baa la yidhahdaa hagsi kadib maxaa dhacay khaalidow sheekada aan kuusoo dhameeye markii dambe waxaa dhacay gabadhii wuxuu ku yidhi walaal oon yara maxaa la dhahdaa soconayaa waan degdegayaa meel baan tegayaa maxaa la dhahdaa dad baan la ballansanaa aan asxaab nahay markaa waan socday kowdhe ka yaacayaa ile meesha haade marka adigana waxaa soo galay maa garanaysaa wiil aan asxaab nahay oo naasir la idhaahdo ayaa meesha soo galay marka isaga arkay markaa wiilku iska yara shidnaa moogta qof lagu xaragoon karu ahaa adiga camal nacan kowdhe kowdhe wiilkii markuu soo daadegay waa intaa cararay macal liqaabkayga macal xijaabkayga waan tagan ku yidhi kaale saaxib gacantan soo qabsaday waa soo maray naca maxaa ka dhigaya inuu ninkan aniga la sheekaysto hadda lama sheekaystana abti waxaad leedahay adiga xabidaasaad ka wadataa ana xabidkanaan ka wataa daawo haa kadibna waa kaalkii intaan dul istaagay baan dee gacantiisa qabtay dee xabadkaygu uga shidnaa moogta xabadiisa markaasaan kuhaya iskuuru fiican tahay khayr caafimaadkaaga dee maasha allah xabaddan waa xabadii xabadkanaan ku baraya xabadkanaan wataa inankan waxaa la dhaha hebel inanka kalena hebel baa la dhaha waan isbaray markaan isbaray markaan isbaray labadoodii ayaa waxaa dhacday ninkii wuxuu yidhi markaasaan ku yidhi inantanahay dee maanadna baray baan ku yidhi ma dumaashidayba baan ku yidhi moogta may dumaashida ma imaak caawan is aragnay u kala hadlo inankii u salbabakay dee markuu adarkii arkay uu naxay moogtahay ilan baasha hal fiicana lagu faanaayo adii xabad baad u dhiibtee ilaahay baa ku heshay niqaamkii maanta stars kaga rogay oo u qaslo maan ku yidhi dhib ma laha ina mar xabiibi kii kale maan jiitay unda aniguna sheekadaasaa ugu qasalka badnayd markaan heshiinay ayaan ku yidhi niyow arrinkaa ma xasuusataa markaas ku yidhi oo kaalay ma inaad saa lagu daynayaad moodaysaa weji nacama qof wal xun waxa isfahankii qalbiga markaasaan ku yidhi dee maad ku ekaatid markii saaxiib soodigii ka cararay
aan ma garasa sheekada igu qosolka badan هاي يقول شاكي ad maartay nin kala tagtay gurigeeda ma hortagi lahayd baarkiga ma ku dhex seexan lahayd ما يتاسوا شاكي هندي كان كده ولا أنت بدون ده صاحب yaa ku daawataa soo ma wallahi bay kuma sheegay baarka la seex baro qaar ku baarka jacayl u dib baday baarki ka seexatay adiga seexday sheekada igu qosolka badan waxa ahayd saa u sugayay maartay dadii waxaan ku leeyahay baarka ka seex hay tagtay baarkinkeeda weeyaan hay galaa u gabdha arkayso aroonimada soo kacay baarkinkii oo anigu maartay towanku isjiidayo inuu towankiinu qaaday towanka because gaariyada qaar kood Mareykanka haddaan aanu sticker lahayn waa la qaadaa gaariga gaariga laga toogaraynay miya anoo la toogaraynay arkayde maxaa adiga dhex jiifa way hadda lagu toogarayn lahaa baa ku daraa waad ku baraarugtay markaa markaasuu ninkii soo ayaa markaasuu yiri maxaa ku dhex dhigay haddaan imid baa kaga bilaabay goormaan imidee haye baarkana hurdee towankaa bay qaadan gaaree markaa sheekooyin ku qosolka badan weyn meel listen adiga jacayl daraadeed baad baarki ka dhex seexatay towankiyaa lagu yeedhay laakiin baarkika maxaa ku dhex seexiyey saaxiib waa su'aale saaxiib jacayl baa ku dhex seexay may kugu yara kacsanay xaajadu way kugu kacsan tahay moogta marka qaarkood waa goormadee like beri hore ahayd hadda ma ahe hadda beri hore hadda ahayd caadiye hadda shalay ahayd caadiye khaalid waa iska caadiye way dhacday hadda shalay suuqa iga xidhin hadda baarkinkeeda hor taagan ma ogid be baarkinka towankeeda alle inuu qaadee ya marka waxyaalo badan oo looshi sideeda maarto waxyaalo badan ku soo maraya waxyaalo ka qosliyo waxyaalo ka naxiyo soo seetaa loola dhaqmaa laakiin adigu niyo jacayladaadu imse haayeen jacayladu la badan sanadka maanta toddobaad baad isbaranaysaana baby I love you baa bilaamaysa haddana toddobaad kadib mid kale aad ku leedahay marka jacayladaas waaba iskar waayada balka waraadi jacaylkaaga horta jacaylkiisa waa jacaylka aamin dhabta waa ka qalbiga ka imaada maaha ka afka ka imaada markuu ugu horeysa jacaylku wuxuu ku bilaabmaa waa dareen waa ka helitaan not jacayl qofka jacaylka dhab waxa u qaadaysaa waa marka aad qofka aad baratid dabeecadiisa baratid like couple month aad isla socotiin like 8 bilood ha noqoto 6 bilood ha noqoto kugu yar 6 bilood kugu yar 3 bilood ha noqoto dabeecadiisa ku qancinaysa hadalkiisa ku qancinaya kolba siyaabo badan qof ku dareemaysa maaha niisheeg kalluunkii maartay xariga loo tuuray la soo qabanayo maaha waxaas waysa qofka dabeecadiisa qofka aduuna ku qancin daabta wadadaas kala maraysa waxa horeysa niyo qofka rabi maaha tiide siiso ya marka nolosheeda maartay siyaabo badan ay kugu soo maraysaa wax ka farxiya arkaysaa wax ka naxiya arkaysaa hadda waxba kama sheegi kartid jacayl because of jacaylka dhabtaa weli filsan kuma helin maalinta ka sax ma waa sidaas oo ku doonaa been kuma sheegay gurigiisa anaa hor seexanba iska wada adiga anaa fis waa tahay khaalid aad baad u mahadsan tahay maanta waqti fiican baad nala qaadatay sheekadu waa ka rogo haddana saar ya wiil kalaan ku casuumaynaa isagana barnaamijka oon raadin doonaa insha allah ma ii faraxsano kuudhe marka aad baad mahadsan tahay waqti fiican baad nala qaadatay si fiican baan u qosolnay dadku kulley way ka helaan insha allah mar kalena oo ku kulmi doonaa barnaamijyo kale sidaad ballan qaadeen waad u heesi kartaa oo heese macaan baad ugu qaadi kartaa ma fahantay soo diyaar garow qof kale u heesiisu khaalid kale u heesiyey aniga ma heesiyey ya ana markaad ila heesaysid baan heesaa moogta bes haddaba marka dambe next time waa inaan hees talantaaliya soo diyaarsanaa si fiican isku diidiiweynaa marna adaa soo tuuri marna anaa soo tuuraya igu hadlaya bes sheekadu way dhan tahay saasaan isku ognahay sidaada kale isku xaalkuma kala degana wallahi xaalku degan yahay bashbasha bawaaqa lagu jiraa koodhe dee kolley shaqadaadii baad ka soo baxday waqti baadna siisay aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan nii wada salaamay adiga asxaabtaada koodhe ii faraxsano yaabti waa si fiican allah waynoo mar kale haddii ilaahay raado haye insha allah walaalkii qaali waan ku salaamayaa kulan dambe oo xiise leh bal ismaqli doonaa miito walaalahay assalaamu calaykum
هاي waxaan raadinayaa haddana mid kale lifekay ka shidan tahay maanta inamada hayaa heese madaxaaba meesha ii bilaamay oo sideedniya waa heesii soomaaliga ah talo gurya ilaahay yaqaan waxaan 10 daqiiqo kadib insha allah aan ku soo marti qaadi karnaa wiil cabdirasaaq la yiraahdo kullina hore aad u aragteen oo markii ugu horeysay aan ahayn cabdirasaaq baad si fiican nooga qoslin doona isaguna khaalidna aad buu mahadsan yahay inta ka horna heesaan ku sii raaxaysanayna asxaabay ila raaxayst sheekadu saasay ku dhintay inamada kalena ayaguna ay rabaa inay barnaamijkan oo kale nagala qayb qaataana farta taagan oo soo diyaar garoobaan ayaguna sorry asxaabay call bay soo galay iga raali noqda telefonkuna uu dami rabaa chargerkan soo qaadanaya intaanu igu baqtin anoo idin sheekan mataan yare saaxiib waa si fiican farta taagteen barnaamijkan oo igala qayb qaadanaysaan soo diyaar garoobay idinkuna سؤالي ماشي كل عوضي برتا شوف وانتلاغا حبلا كان بيرتا يشو برتا شوف وانتلاغا حبلا كان بيرتا يشو حتى ويحنا نجيسي
أيه شعركم بحنان كسا ما يبغى لكو يقاني أنا بدو يقابل أيه إسكاجي بدو يقابل أنا بدو يقابل على افتين كمان افتين كما يقصد لا إله صاني قبالك مسيحي قاعدين وي ناق بدوت واحد روحي يقانا ليخا من تحولي إسا قرار سوقارو ددالي قرار إسا ورتد شوط ما برستو بحدوني ملغو يقانا إنتو بس قريبا يحيد لفه سفنتا إنتو بس قريبا يحيد لفه سفنتا ورشدو ويبشدو عاوي ويلكي ما ويلكي ويصبحنا يمجع شعركو بحنان كسا ما أنا بدوني مو يقاتي هلا سعود سلام بالك الساحرة dadki way dareereen soo yaaca si fiican ma ku maqlaa saaxiiba iska waran ma fiican tahay ku soo dhawo barnaamijka wiilasha shidan filsanay waa dhowahay adiga iyo salaamaya ninkii odayga igu horreeya wax walba qasay oo maleynaya ya ninkii odayga igu horreeyana waa salaamaya adigana waa ku salaamaya aad baan ku salaamayna anaguna sidoo kale meesha friend ku soo dhawo barnaamijka inaan kan Cabdirasaaq baa la yiraahdaa saxaabay soo dhaweeya intii garanaysa way garatay intii kalena inkastoo anigu ya aan iskiin baray haddana barasho wanaagsan intii taqaana way taqaana hadda dad badan oo yaqaana meesha uga jeedaayo baalaha iga qarabtamiya baalaha may baalaha kaama rifayaane dabcan sar waxa taardadiisii oo ya baalaha ka rifi kara saaxiib wallahi filsanay anigu waan ku aqaanayna baalaha iga rafta ay soo qabatay Soomaa waaru may mid kala dirtay ma kala ku bilaabo waxa lagu guri ma qadaad weyntii baa taa ma calanka buluugi dirtay sheekada ay bilaamatay
والله وحارتها بالله وكاسي وري وكبسوا نولشي ذاري أبى قدادوين ما قف والبا وحو xidhan yahay laguma qiimeeyo qof walba wuxuu doono aaminsanaan karaa calankana waa calankiisii waxa loo nabadgeliyo asxaabay imikana meesha siyaasadii oo calan iyo qabiil iyo waxa toona ma taagna waa inaan la wada raaxaysto oo la baashaalo muhiimadu waa inta إيه ورن حلقة برنامجك محل وقال لي يا مان barnaamijka waxa weeyaan wax walba wixii maskaxdaada ku soo dhaca wax walba ayaa looga hadlayaa cabsi baa bay gashay basaas oo jireynaya cabsi darteed may cabsi ma jirto dilka ma baalay ka rirtaa maanta bumna wuxuu darartaaba may anu baalaha kaama rifay laakiin qaar baalaha gaarifay xaggana ku jiraan saaxiib oo diyaar ku ah dad badan xarash ayaa u jeedaa baalaha saa iga rifay meesha laakiin wax shida male ha may imika waa lagu soo dhaweeyay adiga soo dhawaada asxaabay soo bata la soo bata maadaama inankii iga horeeyay waxaan ku yidhi dad badanna xitaa adigaaba kamid ahaa dadkii ilaha noo heesa moogtahay marka adiga waa inaad caawa xabadaasa ku luuqaysid adiga laftigaaga moog maya horta shaqada waa la kala leeyahay filsanay hay shaqada sideedaba waa la kala leeyahay qof waliba wuxuu leeyahay yani wax uu hob uu jecel yahay inuu sameeyo moogta hay maanta aniga haddii aan u dhashay oo aan rabo aan dhaktarnimo barto oo dhaktarnimo aan rabo inaan heer ka gaaro maarag dee hees shaqo kuma lihi aniga yani dhaktarnimadaas unbaa fahmaysaa in wax lagu weydiiyo habboon tahay moogta hay laakiin dee heesaha ragga iskale dalmar iyo kuwaasaan soo qabanaynaa wax shidaa male hay dalmar iyo ninki la yidhaha dhifiq aniga waxaa maqlaa hadda hees cusub oo soo wadaaba oo filsan la yidhaha inuu hees ku qaadaan maqlaagi hay dhifiq heestiisa way soo socotaa marka heesta filsana la yidhaha gabadhaana daawanaysaana loo qaaday heesta hay maasha allah waaba hees macaan ma tahay dee haddaad maqashay inaadeer heesta caadi maaha miraha waxaa iskale ninka la yidhaha daahir calisow ma taqaanaa horta si fiican aad baan u salaaminaa daahir calisow miraha daahir calisow waa iskale laxankana waxaa iskale ninka la yidhaha dab casir hay waa la iskugu tegay markaa heestaase muusigana anigaa garaacay maama malyuunka dhanka videoga insha allah ay ka caawin doontaa fan hay marka heesta waa iskugu tegay filsana la yidhahdaa heesta soo baxaysa insha allah haddii ilaahay idhaahdo waa si wanaagsan waxaan ku weydiinay inaadeer su-aalaha iga tartiibide maya su-aalaha waa lagaa tartiibinayaa bal waraysigii adigii dabcasan idin dhex maray khayr ma ku dhammaaday wallahi khayr ku dhammaaday horta ninkaas haddaad ogtahay haddii kale waa anu qaraabanahay ma fahmi haye ninka waa nin fahmaysaa yacni aan qaraabanahay oo jacayl iga keenaba aniga qorshaha yarkaa inaan sameeyo video yarkaa inaan sameeyo jacayl baa iga keena ma fahmi xumaan iga dad badan oo xumaan u fasirtana way jiraan oo ma fahmaysaa video waxyaabo kale ka daba keenay laakiin dee anigu sababta aan u keenay waxa jacayl iyo taageero aan u hayo iyo ma fahmaysaa yacni in aan aad iyo aad u taageero oo aan jeclaa ninka odayga laakiin dee inaan ku xumaynayo oo kale dhalinyarada waxaan leeyahay videoyaasha ka samaynaya hadda midkaan sameeyey oo kale dhalinyaro badan oo soo samaysa arka waxaa qurux badan in ma fahmaysaa yani xishood out meesha yaallo iyo respect maadaama dee qof weyn oo aabbaha oo kale uu yahay qofka moogta waa runtaa been maaha marka maxaa la yidhahdaa aad iyo aad way qurux badan tahay in la respect garay laakiin dee waraysigaas jacayl iyo ma fahmaysaa muxubo iyo kalgacal aan u qabo ninka odayga taageero weyn aan u ahay qaraabana waa nahay marka sidaa daraaddeed inuu yar oo lagu soo xasuusto odayga u samee baan isir hay marka intaas un bayahay waa tahay waxaa la yidhi waxaad furatay waxaad jarmalka ka furatay baa la yidhi dukaan weyn oo saliid saytuunka lagu iibiyo arrinkaasaana soo gaadhay maxaa ka jira saaxiib wallahi filsana horta maasha allah horta wax weliba ma fahmi soomaalidu magac hadday kula doonta cid kaa celi karta male magacuna ma fahmaysa hadduu mar baxo yani ka noqoto male hadda waxaan ka baqaya saliid saytuun in lii baxshaba cabsi ay igu jirta ma fahmi marka saliid saytuun barnaamijkaas waan ka hadlay un mooyaan weligeyna ma isticmaalin mana ka ganacsan mana aaminsani ma fahmi marka saliid saytuunka dee ciddii rabta waxay ugu xiriiraysaa ninka la yidhaahdo walaalkeen dabcas ninkaasaa ku caawin
ayaa ku caan baxay waxay ku yiraahdeen asxaabta ku daawanaysa hanaga jeedsanaysan noo soo eeg oo mar qora inta soo istaagtin aan ku daawano wajigaaga wallahi waa la isku qarxinayaa baa baash su'aalaha ka gabanayo ku soo jeesamiya gasoo jeesan oo saag baa lagu leeyahay wajigaaga aan ka boganay wallahi dad badan intaan kaga jeeda kulliga way wada salaamaya abwaa Saciid Sare dhammaantiin abwaaniinta iyo fanaaniinta meesha ku jirta kulliga way wada salaamaya dab casir ninka ka salaamaya hada ku jirto fanaaniinta iyo abwaaniinta dadka waad ku dhex jirtaa inay maad ku fikirto weligaa inaad fanaan noqoto maya xasatilillah aniga waa dhal wadaad ahayba dhal wadaad baa tahay jacayl dartiina maanad mararka qaar aanad u qiiroonad u heesin maya aniga horta jacaylka sidiisaba waxaan ka aaminsanahay hadda ma fahmaysaa Soomaalidu ma fahmaysaa yani waa dad aad iyo aad u laabtaxa yani wax yaray ma fahmaysaa wax weyn ka dhigan ma fahmi yani hadda bariyahan wuxuu noqday wax iska sheegata oo dhigi karo wax fahmi laakiin anigu waxaan aaminsanahay jacaylku inuu yimaado guurka kadib in ma fahmaysaa jacaylku uu yahay raxmad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo noogu talagalay haboonna لكن دي ألوك يا هاي بيبي أنا بتحلي بيبي بريسكا كده حركايو بيبي والله جلاسك بيها تحيا كده حركايو ودل نبى شعيل بيرا هذا بالكور ما تشعيل كان ما تشرع إلا شعيل كي هرية شعيل كان ما تفرق وين الباود حياة شعيل كان ما تشرع زمن كان ما تلو أركيو maxaad islaadahay uu kaga duwan yahay jacayladii hore soo jira hadaad kuwii hore wax ka taqaanid wallahi horta kuwii hore horta aabay hooyaday inta badan horta dadkii hore waa la isku qasbi jiray ma fahmi hay laakiin aniga dhalka jacayl ahay hooyaday iyo aabay jacayl isku guursaday hay jacaylkii hore iyo jacaylkan sida hadda ku sheegay way dhalinyarada sanadkan jirta oo ma fahmaysaa yani qarnigan حقيقة شعيلك وحد مريسا إن فهم بيسا يعني وحير أو وحبه هنا كسر قادينه كادو إلهي كورو ياي وحن آدي هم هين أيضاً كذا لكن تدك هراء حقيقة مسؤولية دموية قانين شعيل دموية قانين قدرين تا يمفهم بيسا يعني قفك قيمين تسنة تجوني أيه لكن ده سيب قربها السنة كان يعني شعيل قال وواحد كفو يعني أنا مدنين بس هراء لا بربر دجموك لكن أنا وحاول مقالة إن شعير مفهم شيء عن عادي كل سنة هذا قرر وقول عادي. هاي. بس شعير هذه كان قوسة. ما عليك كيجي. كاي. أنا كيجي وأنا كشكي واحد الكوربان كشكيني وحيابي يقول يا كبرنا شعير كي جلس صاكل مي. قولي. هاي. داهر على السنة وادو يردا وادو جيري هاس تسميه أكال كان حب خلاص كله. ورداهر وكوابسنا كل الداهر دني ما ونص شيء دني وما كرنا إحنا شاب بينا كرباشي لكن أنا جينا نكرباش أنا ما راح دي من هاي باي هذيك تاجرياش يستنك منا هاي عادي ما كان لو تابن مايو ها ما يعني كشعيل كي وان كشيكي كودا عبد الرزاق وكي غوري وحيابي ومو يابك بدنا يغلا سو كلمي كودا هاي bal adigu kaaga hadaba nooga sheekay iyo waxyaabihii kugu yaabka badnaa ee saameyn kugu yeeshay ilaa hadda xasuusatid wallahi de aniga jacaylkii ugu darnaa wuxuu ahaa hadda kor waxaan jeclaa gabar Tansaaniyana haye oo Soomaaliyeed bahaynba jacaylkii hadda waxa la ima tusawan hinaasaay gabadhii Soomaaliyeed ma gabadh shidan baad ka weyday waa ku sideenaade horta aniga Tansaaniyan ku dhashay haye Tansaaniyan ku jeclaa gabar iskool ahaan jirnayo Abuja la dhigi jiray هاي gabadhii jacaylana dhex maray gabadhii jacaylku wuxuu socdo ugu dambeyn guur gaaray wax walba waxay gaaraan ugu dambeynta moogta guur markay shaakadii gaartana waxaan ku yiri fahmaysaa yani inaan ku guursadaan u baahanayo fahmaysaa yani inaan xaaskiga noqoto ilmahayga mustaqbalka hooyadan ka dhigan diyaar waan ku yiri moogta haye gabadhii waxay ugu tiri aabo u tag haye نفسي مفهمي سوى الوعسرية نيكا وضيع بكورة ولا صابعه السواحلي يبلاي يقول دلدلي أنا شو ما هي قبل إذا ما حد كرتاي بلاي ولا قلي بفهم هاي يعني أنا
nin aabahay oo mafahmaysaa yani ninkii dhala aabahay labadoodii u kala turtumay ma fahmi hay aabahay wuxuu tahay gabadha geelaan ka bixinaynaa oo dhaqan Soomaaliya ma fahmi hay haddaad ogtahay haddii kalena xagga jiirka ayaa laga dhaqdaa oo ma fahmaysaa yani ilaa Uganda ilaa Tanzania dhinacaas gabdhaha jiirka laga dhiibaaba maxaa laga dhibaa jiirka ama dooliga saa u taqaano jiirka yar bisika kaasaa la dhaqdaa kaasaa la dhaqdaa beeraha lagu sii daystaa way cunaan xitaa ma fahmi hay marka haddii ilaahay kuu rooyahay aabahay iyo gabadha aabaheed waxay isku fahmi waayeen war gabadha aan ka dhiibno geel iyo hay waxaan u baahannahay intaasoo kun oo jiir hay aniga aabahay ugu yaabo wuxuu yiri war nagala tag waxaan maxaa la yiraahdaa jiirka Suuriyada ka weligeed ma naaragay hay ayro wuxuu leeyahay anu hadda gabadheeda jiir laga dhiibaynba ya idin ma siinayo ma dhiibayo taagay anigii wareerde hay marka aniga jacaylkayga igu darnaa kaasoo ahaa yani waa ka sheekeeyaa bismillaahi raxmaani raxiim waa jacayl laga yaabo jiir weligay ma arag maanta igu maqan aniga laftigeyga haya xagga waa laga dhaqdaaba jiirka iyo aad looga hay qali inna lillahi wallahi sheekadaas waa sheeko waalan kowdhe laakiin saartay nimadeena Soomaalida maxay dumarka ajaanibka ka doonaan horta dumarka ajaanibka waxyaabaha nagu qasbay horta inay guursanaado ka naftirkeenu yani dhaliil baad ku leeyihiin moog hay sababtu waxay tahay yani dhaqan cusub aan tusaysaa markaan imaano fahmaysaa yani qurbihii markaan imaano xaqiiqatan waxaan tusaysaa dhaqankii aan ku naqaanayo wadankii ka duwan oo ma fahmaysaa yani dhaqan galbeed aan tusaysaan moogta hay marka taas waxaa nagu qasbaysaa in fahmaysaa yani la doorbido gabdhihii ajaanibka ah xaqiiqatan hay marka iska dulqaata wax shidaa male waa hal iyo laba naga tago gabdho kala guursaday wax shidaa male inta soo harta ma saaxiib shida anu horta waxaba la moodaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan afayaan wahay markaan arko nin Soomaali oo gabadh ajaanib guursaday ayaan dhigtay talo Faarax baan haystay waxaan ninkaasi bal ma inan Soomaaliyeed oo qurux badan oo wanaagsan oo aqoon loo wax barato nadiifa oo qurux leeyahay ilaa habla sharaf loo qurux badan bay Soomaalida waa hablaha adduunka ugu quruxda badan ugu wanaagsan oo gabdhaha Soomaaliyeed ee maasha Allah ee quruxda badan ee walaalaha wanaagsan wiilasha Soomaaliyeed ee la dhasheen maxay Jamaicanka iyo Jinniga iyo adoonta iyo Nigeria ay ka doonanayo taa miis weydiiso adigu hadii aad tahay taa kaaga jawaab saaxiib ya horta gabdhuhu iyo rag way kala duwan yihiin kowdhe ay maxay kala duwan yihiin gabdhuhu iyo rag waxa ku kala duwan yihiin gabdhuhu waa gabdho qalbigooda horta uu jilicsan yahay waxaana u baahan yihiin markasta jacayl ma fahanti waaga inamadii Soomaaliyeed waxa laga daba riday baan iyo balaayo iyo tan tijaabiyo tan ka warqaan iyo tan kale wuxuu rabaaba han weynidiisa inuu waxa naaga meesha joogo dhan u qabsado kowdhe horta filsanay hal dumar ah si lillahi oo hadal bee ma saaxiib sidii ilaahay og yahay hal ay dhageyso haja oo wadiga cumaamada ay iga ridi saaxiibay dhageyso ay kowdhe maxaa la yiraahdaa inankii Soomaaliyeed gabadhii way la sheekaysatay way isfahmeen way jeclaatay qalbigeegiiba furtay wuxuu taagay isagu ilaahay afar baan loo baneeyo qaar kale inta la sii raacaya kowdhe waan gartay baro naagta naag ugu qurux badan ugu sharafta badan la xataa haduu qabto quruxdeeda iyo qiimaheega waa laga qariyo ilaahay wuxuu tusay maxaa la yiraahdaa ee tukale hay laakiinse markuu inankii naagta ninka madow amba ninka kale jaanibka waxay ka doonanaysaa waxa weeyaan ninkaasi naag kale lama guursanayo qiimaha ay leedahay buu tusaya jeclaanaya ma fahanti aad laakiin dadkii Soomaaliyeed saaxiibda naaga kale nin naaga kula leedahay dhigteeda ay leedahay horta hay taa waan ku dareemi karnaa waan fahmi karnaa ma fahmi hay laakiin horta dhinacaasi horta intana rag iyo dumar ba xaqiiqatan yani dhalishu way jirtaa ma fahmi oo ma inta karno laakiin still waxa jira waarid ama ma fahmaysa yani family laga soo doonto nin ajnabi inta ka soo doonto haduu ilaahay ku rooyay family ku yimaado oo gabadhii lagu darayaba kuwa adigu maxaa ya maxaa tirku socodi in nin ajnabi yahay nin Swedish oo kale ka soo baxo oo family u yimaado oo yiraahdo gabadhii u baahan xitaa ninkii muslim ma aha ya hay intuu family ku yimaado oo yiraahdo waxaan u baahanay gabadhii inaan guurso gabadhii
aan ninkii la eegin fahmaysaa yani diintiisii dhaqankiisii aan yani la aqoon yani gabadhii la iska siiyeyba anigu goob joog aan ahay ma fahmi haye horta arrintaas u aragtaa yani waa muhiim inaa ogaado moogta arrinta horta aan mid kuu sheegay in adeero cabdirasaaqow hay horta eeg qofku markuu qof doorto qofka guursanaya waxa weeyaan qofkan doorto qofku kowdhe waalidku hadday u diidaan iyo hadday ka soo hor istaagaan iyo hadday u diidaanba maxaa la idhahdaaye dee waalidku ayagaa dee maxaa la idhahdaaye ayagu choice ma laha waalidku ayagu waxay ku qasbayin inay u ogolaadaan gabadhoodu waxay rabto waayo haddii kale intay daliilka ay raaci lahayd amba de wax dhibaato kale iman lahayd waxay isleeyihin ku asturaynaantiinii moogta maadaama ninkan ayadu wadato hay dee hadday u diidaanna qalbigu maalin buu rabaa moogtahay hay adigu filsan ahaan haddii maanta yani qof ajnabi aad jeclaato filsanay yani horta jacaylku waa wax jira hay qof ajnabiya maanta haddii aad yani ma ku fakeraysaa qofkaas nolosha la wadaag oo qof ajnabiya guursa niyadda makaaga jirtaa si lilaahi oo hadal qof ajnabiya inaan nacam anigu jeclaaday filsan ahaan ama aad guursataba yani niyaddaada qalbigaaga ma ku siinaya horta wallaahi cabdirasaaqo ma haddaan run kuu sheego mise haddaan been sheego hay haddana anigu run kuu sheego weligay anigu xataa riyariyo kuma arag inaan nin shisheeyaa guursado nin soomaali waxaan ahay marka si loo eego waxaan ahay qaasiista waxaan ahay qof dee cunsuriyada ma garatay hay waxaan jecelahay inaan maanta haddaan sharaf leeyahay haddaan qurux leeyahay haddaan fiicanahay haddaan wax kasta ahayna nin inaadeerkaya oo soomaali aan siiyoon dee gift uga dhigo nafteeda ma garatay nin kaloo ajaanibana de inaan hooyadii nin aanay af garanayn oon isku dhaqanhayn oo aanan isku diinhayn oo maanta hooyadii de wuxuu kala turjumo loo doono de inaan u keeno ma rabo ma fahamti dee anigoo helaya inama soomaaliyeed oo shaqaysta oo fariidiina oon balwad lahayn oo diin leh oo akhlaaq leh oo sharaf leh de maxaa nin kaloo shisheeyaa ka doonaya waa su-aasha meesha taale ya marka inamadeeda anigu muslim oo ku qanacsanahay sax waxaaba qurux badan ba fahmaysaa yani gabar Soomaaliyeed oo aragtay oo udgoon oo qurux badan oo fahmayso oo isku diinahay oo isku dhaqanay anigoo arkay maxaa falaya yani naftirkii gabar qurayso ajnabi maxaa falaya loo waar iga raali haw telefoon baa soo galay telefoonada saacadaas iska soo daba dhacaan هادي والله يا هاي واحد سؤال ما قطع saacadihii maxaa la idhahdaaye layse soo qaraacay way gaadhay saacadahaasaa layse soo qaraacay haye malaysaa ku jirta waa lagaa jiirayaaye maxaad maanta ka sheekaynaysay ya su-aal kalaas weydiiyo cabdirasaaqo su-aal iska dhexdhexaada lak codkii baa niyo iga xirmay sidii markii hore iga noqday maxaan sameeyaa codkaaga ma maqlay telefoon markuu soo galma una codkun baa xidhmaya talo maxaa dhacay wallahi hadda mii maqashaa suga xarkaa soo qaadanaya sii sug yaa okay anaa dadka sii haynaya soo qaado yaa haye xabta yaa la bixin jooga bartiina jooga هلو أصحابتا
هلو صحابي ما مقشان indhadeeqay kuwaaway indhadeeqay kuwidimiday way kan naagtan waa qolama horta baa ka dhacday meesha haye warka idinme saaxiib aw cabdirasaaq mu ka baxay isaguna khadka muu idhaweedaartay haa iska jaray sorry dadku sheeko way ka dhargeen qadar yaroo heesa wayna ku nastaan ya dadki iskaabulosan miya yidhi iskaabulosan miya dabca sarwac buu yidhi alla yacizag may okay imikaan fahmay sheekadu halka ka qaldan tahay maad maqashaan asxaabay هاي سلسلة soo dhow waxaan ku niyo khadkii baa go'ay tolo maxaa qaldan qadkii waa go'ay hadda waad maqashaa ku isjaray hadda waa ku maqlaan si fiican baan ku maqlaa welibana clear adu may maqashaa xawan isduqoobaniyo islaam baan noqday islaan alcajuusatu alqaabiriin baan noqday beryahan waa qasab waa albuqoodayahay maya imika waxaa maraysaa nin sheekadeedu gaadho isdaba qabo ila waad gaboobiye abwaanka qaaliga cabdiqani xaad joogto bar naga yar raali noqo life baa lagu jiraa haye warka soo daa life baa lagu jiraa silsalay hee in adeer hay ugu maqaalaa aniga ma fahmaysaa in hadduu ilaahay kuu rooyahay fanaanad aad tahay laakiin aad isqariso haye maxaa kuu qasbay inaad isqariso adigoo fanaanada oo codkan leh oo quruxdan leh maxaa bulshada ula wadaagi laada maya horta fanku waa waxa qofka ku dhex jira ma garat maaha qofku waxu dee uu samaysto amba uu iska dhigo dad isqasbaano way jiraanoo fanaaniinta kamida ma garat laakiin saaxiib anagu isma qasabne baasha waa yaro qarsanaynaye dhibcadda ilaahay ku sii waa inaad badh la hadhin moogti dadka meesha ku jira waxaa aaminsanahay inay su qanacsaneen inaad qariso way sugi laayihiin inaad soo saartaba oo banaanka soo dhigto waa wax dhici kara de inaad soo saaro dee xabadhaas laakiin bal waan eegi doonaa horta waa taa inaad la fadhiistay u baahan tahay maya adiga soo saar ha videoga waxaan kusoo daraynaa dabcasiraan kusoo daraynaaba dabcasir baa noqonaya ninka la mateleyso maaha ninka kula ciyaaray ninka odayga dabcasira ka dhiganaa bal codkayga aad tijaabisaan xabad heesaan idinku luuqaynaya kowdhe horta hal isku dhifacaaw dadka meesha ku horan qaadaya kowdhe xabad heesa ku dhifo ma ogtahay in badan baan kaamusnaayoon afka kala baqaye ma ogtahay indhahayo urkuba darada inay ku ilmeeyaan kalgacaylooyaan
ugu kula midane sidaan aabbaha dilayey oodahayga rogaanine umalka iga bi umalka iga